dirayaan oo isweydaarsanayaan. haddaba maadaama aan sheegay Payoneer waxa uu yahay, bal aan hore uga soconno si uu fududaado fahamka Payoneer waxa uu yahay iyo waxa loogu talagalay. Payoneer waxa loogu talagalay ama company-ga sameeyay muhiimadda uu sameeyay ay ahayd waxa weeye waa in uu ganacsiyada, organisationada iyo ururada uu u ogolaado in ay shaqaalaysiin karaan dadyow jooga daafaha kala duwan ee dunida, kadibna dadka ay meel kasta joogaan lacagta u diri karaan. saasoo kale isba waa loogu talagalay, laakiin awoodda Payoneerku leeyahay baa ka sii weyn marka la eego awoodda uu Payoneerku leeyahay. So Payoneer waxa ugu weyn ee loogu talagalay, inkastoo dadkuna lacag isaga diri karaan, aniga iyo qof kale labada dacalad dunida joogna ama dunida daafaheeda kala duwan joogna lacag waan soo diri karnaa. laakiin muhiimadda ugu weyn ee Payoneer inta ugu badan loogu talagalay waxa weeye waa ganacsiyada iyo inay ururadu internetkaygu adeegsanaya qof lacag ugu diri karaan, qofkaasina uu joogo dunida meesha uu doono markaa uu ka joogo. haddaba maadaama aan isla fahnay taa, waxaan isweydiinaynaa sidee baa Payoneer lacag la isugu diraa, maadaama aan fahnay in loogu talagalay in daafaha dunida dad jooga lacag loogu diri karo. Payoneer waxaa lacagta lagugu soo diri karaa ugu yaraan 2 qaab waqtigan muuqaalkan duubayo. qaabka koobaad waxa weeye qofku markuu lacagta kuu soo diray wuxuu kugu soo diraya ciwaankaaga ama akoonkaaga aad ku leedahay aaladda Payoneer. markuu lacagta kuu soo diray waxaad u baahan tahay inaad ciwaan ama akoon ku leedahay Payoneer. ciwaankaaga emailka aad ku samaysatay ama emailka aad ku isticmaasho baad qofka u diray, kadibna markaa isagoo emailkaaga isticmaalayo lacagta kuu soo diraya. markuu lacagta diray ayuu magacaaga, xogtaada waxaagaba helayaa, emailkaaga kaliya ku filan, kadibna lacagta saas ayuu qofkii kugu soo diraya, ama urur ha ahaado ama qof kale ha ahaado, cidda uu doono markaa ahaadee saasay lacagta kugu soo gaadhaysaa. qaab labaad baa jirta oo Payoneer uu kaga duwan yahay Payoneer oo awoodda uu dheeryahay, oo ah Payoneer waxaa lacagta lagugu soo diri karaa iyadoo qofku kuu soo dirayo lacagta markaa wadankiisa ka shaqaysa. maxaan u jeedaa? haddii masalan aad la shaqaynayso ama lacagta company-ga diraya uu joogo China ama Japan ama wadan kale, qofkaas marka uu ama company-gaas lacagta markuu dirayo wuxuu dirayaa lacagta Shiinaha laga leeyahay ama Japan laga leeyahay ayuu qofkii markaa u diraya. marka waxay la macno tahay sidii aad adigu ku leedahay akoon wadanka Shiinaha bangiyadiisa mid kamida oo lacagta ku soo galaysa ay tahay lacagta Shiinaha oo kale, ba qofkii wuxuu ku soo diraya lacagtiisa wadanka. macna qofkii uma baahna inuu ku diro lacag Mareykan ama sarf galo, isaga lacagtiisa wadanka ayuu adiga ku soo diraya. marka wuxuu ku fiican yahay, waxaad aqbalaysaa lacagayo kala duwan oo lagu soo diri karaa markaad Payoneer isticmaalayso. marka wuxuu ku siinaya wax la yiraahdo virtual bank account. bank account oo garanaa lacag ayaa lagu soo dhigayaa. marka Payoneer wuxuu ku siinaya virtual bank account khiyaali ah laakiin shaqaynaya, oo qofkii raba inuu lacag kugu soo diraa uu bank account-ga lacagta kugu soo dirayo, halkii uu Payoneer ciwaankaaga Payoneerka markaa kugu soo diri lahaa. marka waana awoodda uu Payoneer dheeryahay waqtigan muuqaalkan duubayo. ugu yaraan labada qaab baa Payoneer lacagta lagu soo diri karaa, waana mid inta badan fursadda kuu siinaysa in almost company-yada internetka oo dhan ay lacag ku diri karaan. waayo internetka marka la joogo labada qaab ee ugu badan ee lacag la isugu diraa waa either in lagu dhaahdo bangigaaga lagu soo diray oo bank transfer baa la sameeyaa oo bangigaaga lacagta lagu soo dhigo bank account-gaaga, iyo in lagu dhaahdo lacagta waxa lagu diraya Payoneer oo kale. marka awoodii Payoneer uu leeyahay oo Payoneer waa lagu soo diri karaa. marka bank account-na lacagta waa lagu sameyn karaa, Payoneer-na waa lagu soo dhigi karaa oo Payoneer oo kale. marka labada qaab marka lacagtii waa lagu soo diri karaa. waxaan u imaanaa marka sidee baa Payoneer lacagta looga baxaa. Payoneer laba qaab baa lacagta looga baxaa. qaabka koowaad waxa weeye waa in ay lacagta kugu wareejiyaan oo aad kula baxdo local bankigaaga, bangiga aad adigu markaa wadankaada adigu joogto ka shaqeeya. marka waxaad lacagta gelinaysaa xogta bangiga aad isticmaasho ee wadankaaga ka shaqeeya, kadibna markaa lacagta waxa lagu soo dhigayaa local bankigaaga, waa bangiga wadankaaga ka shaqeeya. tusaale deegaanada Soomaaliya mid kamid ah bangiyada ka shaqeeya bad xogtiisa gelin, kadibna markaa bangigaas lacagta lagu soo diraya, waana inuu bangigu ahaado international. waad ogtiin waa fudud taas. qaab kale waxa weeye in lay ku soo diraan Payoneer card. Payoneer card waxa weeye waa card debit card ama Mastercard Visa card wuxuu doona ahaado, labadaas ugu badan noqonaya. tan waa lagu soo dirayaa
waxa kuu soo diray isla shirkadda Payoneer waxa lagu keenayaa meesha joogto lacagta ku taala akoonkaaga Payoneerka ama kaararkaaga virtual ayraahday akoonnadaada virtual bank accountiga kugu jirta baad ka isticmaalaysaa markaa kaarka meel kasta oo ATM mashiinka lacag lagu la baxayo lo kaarka gelin kadibna markaa lacag waad kula baxaysaa waxa soo kale xusuus mudan Payoneer wuxuu aqbalaa conversionka ama in lacagaha la isku bedelo waxa sarifka la yiraahdo marka hadii lacag Shiineys lagu soo diro ay meesha ku soo gasho aad joogto meelaha Shiineys la aqbalaynin conversion baad samayn kartaa currency-ga aad ugu rabto markaa ayaad u bedelan kartaa maadaama lacagii oo dhan aqbalayo Payoneer dollarkii macnaha Mareykanka dollarkiisa baan u jeedaa Canadian dollar China lacagtiisa yuan-kii adii lacagaas oo dhan buu aqbalaya marka lacagina waad isku bedeli kartaa oo lacag Shiineys hadii kugu jirto dollarka Mareykanka aad u bedeli kartaa markaa haddaba markaa labada qaab lacag lagu baxaa aan markaa ku soo laabto deegaanadeena Soomaalida waqtiga aan muuqaalkan duubayay anigu ma tijaabin inaan Payoneer intaan isku dayo inaan isticmaalo aan lacag tala baxo maadaama aan deegaanada Soomaaliya joogo aan bangiyada wadanka isticmaalaya sababta aanan u tijaabin inkastoo aan jeclaan muuqaalkan waqtiga duubay inaan tijaabiyo waxay ahayd Payoneer hal shardi buu leeyahay oo ah waxaad u baahan tahay in Payoneer akoonkaaga lacag lagu soo diro markaa aad markaa lacagtii la baxdo marka anigu ma tijaabin waxaan isku dayay inaan baaritaan fiican sameeyo horta waxaan markaa haddaan halka computerkayga aad ila eegtaan markii aan baaritaanka sameeyay Google-ka ka baaray waxaan helay runtii xogtan muhiimka ah hadda idin muuqanaysa website-kan la yiraahdo Reddit oo ah website dadku inta badan su'aalo ku soo qoraan oo isaga jawaaban oo social media ah laakiin aan ahayn social media aan Facebook oo kale dadku profile-kooda iyo waxyaabaha ku dhacay ka hadlaan meesha waxa lagu talagalay Reddit-ka dadku inay inta badan waxyaabaha xiiseeyaan ka helaan mesela su'aalihii u dambeeyay digital marketing-ka online business-ka computer-ka ICT-ga ku saabsan baad ka helaysaa marka Google-kan oo baaray waxaan helay su'aashan oo mid kamid ah dadka Soomaaliya dhalinyarada Soomaaliya I don't know in xitaa dhalinyarada laakiin qof Soomaali ah uu ku soo qoray Reddit oo ah ma jira buu qof tijaabiyay Payoneer oo deegaanada Soomaaliya ku isticmaalay oo markaa Payoneer tijaabiyay marka fariimo fara badan baa qoray laakiin waxaan kale linka waxa idin soo dhigay muuqaal qaybtiisa hoose waxa tijaabiyay dhowr qof oo ka jawaabay oo sheegay in lacag ay kula baxeen iyagoo isticmaalaya Premier Bank anaga xitaa bangiga waa halkan ku qoran inuu qofkaasi Premier Bank isticmaalay oo markaa lacagta kula baxay laakiinse markuu la baxay intii dambe laga joojiyay oo lacagtii la bixi karo weyday marka baaritaan markii aan sameeyay linka qaybta hoose idin soo dhigayaan marka deegaanada Soomaaliya jooga Payoneer uu ka shaqeynaya hay'adda lacag la bixista Payoneer ma aha wax la isku halayn karo oo la oran karo waa shaqeynaysa ama ma shaqeynayso waqtigan muuqaalkeeda la wadaagayo marka koobaad ma jirto hal meel oo Payoneer uu ku diiday deegaanada Soomaaliya ifan account waad samaysan kartaa ama ciwaan adoo deegaanada Soomaaliya jooga hay'adda waxa laga yaabaa maadaama systemka dawladeed ee deegaanada Soomaalidu aanu runtii awoodiisu dhamaystirnayn in lacagtii ay aqbali karaan in lagu la bixi karo bangiyada wadanka ka diiwaan gashan iyo in markaa aan lagu la bixi karin laakiin waxaan rabaa inaan halka idin yar tusiyo oo ah mid kamid ah dadka commenteedan farintan qoray waa state bill waqtigan muuqaalkan duubaya wuxuu sheegay inuu isticmaalo dahabshiil bank account laakiin ka diiwaan gashan wadanka Djibouti kadibna ka markaa uu dhowr mar lacagta kula baxay sida qofka halkan farinta ku qoray farintan waxa la qoray 8 months ago waxaan isku dayay markaa inaan bal farinta halkan taa la xaqiijiyo waxaan samaystay Reddit account waxaan isku dayay inaan la xiriiro asxaabta halkan yaana oran asxaab laakiin dadka commentiyada halkan ku wadaagay marka waxa way suuragal inaan la xiriiro sababta Reddit markaad ciwaan samaysato hadii ciwaankaagu cusub yahay dadka markaba lama xiriiri karto wuxuu baahan yahay inaad kalsooni hesho macnaha inaad fariimo fara badan commentiya bixiso ku gaara dad fara badan upvote wax la yiraahdo ku siiyaan kadibna markaa inta dambe lagu ogolaado marba si talaaba awoodda systemka ama awoodda aaladan inaad hesho marka way ugu adkaatay inaan la xiriiro xitaa akoonkayga waa halkayda ka muuqanaya xitaa reply ma geli karo wadin arkay commentiyadan reply ma geli karo inkastoo la archive gareeyay oo wax archive la yiraahdo halkaasna ku dhacayo oo ah marka archive laga dhigo postiga ama commentiyada inaan markaa
further comment aan laga bixi karin laakiin xitaa dee waan la xiriiri karo way dadka halkan ku yaala oo marka haddaan ciwaanada kala gareeyo wanaga ciwaanadii dadkii wada kala gareeyay oo halkan yaala haddaan start message iraado fariintii ma qori karayo ifan xitaa haddaan halkan qofkii hello u qoro waa ka qoraalka ay soo saaraya real time baad aragtaan marka taasaa markaa ay suuragelin weyday inaan tijaabiyo hayeshan waxaan ku gabagabeynayaa lacag helitaanka marka ay joogto tijaabi isku day inaad markaa lacag hesho sidaad markaa lacagta ula bixi kartan waxaad u baahantay in lacag lagu soo diro oo dhaqdhaqaaq uu sameeyo muxuu ahaa akoonkaaga sidaad markaa waxaa soo kala xusuusma haddaad samaysato inkastoo marka la samaysta la arki karo haddii aad leedahay Payoneer account qaybta virtual bank accountiga hore lagaa siimayo marka lacaga ku soo dhacaan akoonkaaga baa lagu furaya qaybta virtual bankiga marka intaasna waxa weeye waa markaad samaysanaysaa dabcan ogaan laakiin waxa weeye xog horaan soo siinayo muuqaalka intaan kusoo gabagabeynaya waxaan rajaynayaa saaxiibayaal inaad xog fiican ka hesheen Payoneer waxa uu yahay asxaabta ogeyd waxaan filayaa asxaabta Payoneer waxa uu yahay ogeydna waxaan filayaa inuu deegaanada Soomaaliya ka shaqeynayo baaritaan markaan sameeyay xogahan halaadii sheega oo ah in xog la isku haleyn karo oo ah ma shaqeynayo ama uu ka shaqeynayo wadanka taas waa la hubaaye lacagta wad la bixi kartaa inaan la hubin xitaa dadka halkan comment ku qoray mid kamid ah wuxuu sheegay in lacagta stack ka gasho lacagta kala bixi karo way marka wax filayaa saaxiibayaal xog fiican ka siiyay oo cad muuqaalkan intaan soo gabagabeynaya haddaad muuqaalkan wax ka faa'iiday laakiin noo saar si muuqaalkan dad fara badan u gaaro anaan ogaada marka inaan muuqaalkan la wadaago wax ka faa'iiday haddii aan muuqaalka waqti kalimi oo aan rajaynayn waad dislike gareyn kartaa inkastoo in dislike